waxa uu dhashay isagoo dhagihiisu malaasan yihiin isla markaana aan wax maqal lahayn sidoo kale aan hadli karaynin. Haddaba waa kuma dhagoolihii taajirka noqday. Sheekadiisa halkan ayaan ku soo gudbin doonaa. Intaanan soo gudbin ka hor waxaan kaa codsanaa haddii aad nala joogtana aad baad u mahadsan tahay. Haddii aad nala jooginna subscribe YouTube channelka iyo Facebook page-ka Flowde si uu asxaab fara badan u gaadho. Haddaba waa kuma Blair. Qisada Blair ayaynu gudageli doonaa maanta. Blair waxa uu dhashay isagoo dhagala oo dhagihiisu malaasan yihiin aan lahayn wax gudaha oo dhagihiisa ku yaala. Dhakhaatiirtoo dhan waxay sheegeen inaanu waxa dhagaa aanu lahayn sidoo kalena aanu maqal aanu samayn doonin weligiiba hadlina karin. Laakiin taa beddelkeeda waxa ku adkaystay aabihii oo ku adkaystay inuu inankiisu hadli doono si kastaba ha ku qaadatay waqtigu doonana ha ku qaadatay kana niyad jabi doonin wiilkiisa dhagahala ay dhakhaatiirtu ku sheegeen. Kadib 6 bilood markii uu soo gaadhay aabihii waxa uu dareemay inuu wax yar oo maqala uu samaynayo dhagihiisu sidoo kale dhagama laha laakiin qaybta dhegta ka hooseysa ee lafta dambe waxaana uu ku dareemay agabka uu ku ciyaarayay ee uu keenay ayaa muusigada qaar ayuu aad u jeclaanayay kuna soo cararayay. sidoo kale waxa uu dareemay aabihii inuu wax yar oo jabaqa ay jirto dhagihiisa aan lagana quusan karin dhagihiisa. dhakhaatiir badan ayaa la tusay waana weynaaday wiilkii. dhakhaatiirtoo dhan laakiin waxay sheegeen nasiib darro sawirradii maskaxdiisa laga qaaday inaanay maskaxdiisuba lahayn daloolkii dhegta. balse markii uu soo weynaaday aabihii kama uusan niyad jabin inuu wiilkiisu maruun hadli doono ahaan la doono sida dadka kale ee bini'aadanka ee caadiga ah. aabihii waxa uu ga sheekan jiray sheekooyin aad u dhiirigelinaya tusayana inuu wax walba qabsan karo yahayna waxay dadka kale yihiin aanu kala duwanayn dadka kale. wiilkeen waxa uu ga sheekayn jiray marka uu weynaado inuu noqon doono sida walaalkiisa ka weyn oo uu iibin doono jaraa'idada lacag badanna samayn doono. sidoo kale waxa uu ga sheekayn jiray kuna dhiirigelin jiray in ay dadku u naxariisan doonaan maadaama uu aan waxba maqlaynin ka iibsan doonaan jaraa'id aan laga iibsan walaalkiisa weyn iyo dadyowga kale jaraa'idada iibiya. nasiib wanaag aabihii waxa uu geeyay iskuulka dadka caadiga ee dhagaha qaba. macallimiintii iyo maamulihii aad ayay isu diideen maxaa yeelay maamulaha iyo macallimiintu waxay kula taliyeen inay geeyaan dugsiga dhagoolayaasha balse aabihii ma rabin wiilkiisa inuu faraha wax ku barto waayo waxa uu rumaysnaa inuu marun hadli doono. aabihii waxa uu yidhi dareenkaygu iyo maskaxdaydu aad bay iska soo horjeedeen halka uu dareenkaygu lahaa wiilkaagu uu hadli doona xagga maskaxdayduna ay lahayd wiilkaagu ma hadli doono siday dhakhaatiirtu sheegeen balse isma dhiibin. xoogaa kadib dhakhtar ayaa uu tusay hal dheg ayaana qalliin lagaga sameeyey. wiilkii nasiib wanaag siduu ahaa waxa uu iskuulkii dugsiga hoose kii dhexe kii sare dhameeyey jaamacaddana dhameeyey balse intii aanu jaamacadda iyo dugsiga sare gaadhin markii uu ahaa 10 sano ayaa waxa uu ku madaxdayga inuu iibiyey jaraa'idada isagoo tilmaamaya farihiisa lagu wada hadlay ee body language-ka la dhaho. markaa wiilkii waxa uu doonay inuu jaraa'idada iibiyo balse hooyadii uma ay ogolaan inuu jaraa'idada iibiyo waayo ma hadli karo waxna ma maqli karo ilaa loogu soo dhawaado qofka mooye uu qofku soo dhawaado mooye. wiilku wuxuu saa ahaadaba waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah markii hooyadii aabihii ka tegeen inuu derbiga ka booday wiilkii kabatolo jaarla ahaa ayaa waxa uu ka amaaday $6 lacag $6 balse waxa uu soo xareeyay lacag $42 uu jaraa'idada ku soo iibiyey. waa uu soo noqday $6 waa iska guday baaqiga kale isagoo gacanta ku haysta oo sidaa u duuduubtay ayaa hooyadii aabihii u yimaadeen. dadka hooyadii way oyday waxaanay la oyday naxdinta ka qaaday yacni bannaanka uu baxay keligii isagoon hadli karin waxna maqli karin balse aabihii waa ku farxay waayo waxa uu arkay wiilkiisii oo ficilo samaynaya aan isna dhiibin nolosha. hooyadii wuxuu ku yidhi waxaad samaynaysaa waa wax xun wiilkaaga weyni si uu lacag u helo innaga ayuu ina dhibaa balse wiilkaaga yari lacagta isagaa samaysanaya faa'iidadana soo helaya. sidii waxay ahaataba wiilkii markaa uu weynaaday oo jaamacaddii dhameeyey intaasoo dhanna waxa uu ku waday marka macallimiintu kor u qaadaan codka loona soo dhawaado wax waa maqli jiray wax yar balse xoogaa kadib shirkada ayaa timid hearing aid waxa la dhaho ama qalabkan dhagaha ee wax lagu maqlo oo tijaabo ah ayaa ay siiyeen
wiilkii si kadiisa oo mucjiso ah waxa uu maqlay codadka dadka kale marka uu codadka maqlay farxad darteed markiiba wuxuu ku cararay telefoonka hooyadii ayuu garaacay si uu codkeeda u maqlo isna waa la hadlay sidii waxay ahaataba waxa uu ballansaday shirkadii siisay dhagaha si uu ugu mahadceliyo casho sharaf ayuu ku maamusay balse halka waxa uu ka dhaxarkay opportunity-ga ama fursadda marka lagu leeyahay fursadda nolosha kuma soo raadinaysa weynaad raadita wasida fursad ayuu ka dhaxarkay inuu iibin karo boqolaalka kun ee la midka isaga ee Mareykanka ku dhaqan inuu ka iibin karo qalabkan dhagaha maadaama isaga ay haysto baahidii dhagihii dhibaatada ay isaga soo martay kana baxay hadda shirkadii waxa uu ku qanciyay inuu noqdo salesman ama iibgeeye inuu noqdo qalabkoodan isagana ay siiyaan mushaar fiican sidoo kale qalabka uu iibiyana inuu ku leeyahay khidmad sidii waxay ahaataba maalmaha kamid ah wiilkii aabihii ayuu ku casumay shirkadiisa oo kamid ah memberna ka ahaatan aan ahayn wiilkii yara dhagoolaha ee loo sheekeyn jiray habeenkii balse aabihii hore uma uu dhaxgelin alaabta dhagoolayaasha iyo waxa la mid ah aabihii waa yaabay waxa uu arkay wiilkiisii oo dad fara badan oo dhagoolayaala ku qancinaya siinayana casharadii yaraantii uu aabihii soo siin jiray sidii waxay ahaataba wiilkii hadda waa taajir Blair haddaba qisadan waxaynu ka baranaa ama aynu ka faa'iideynaa inaan nolosha aan la isdhiibin noloshana intaad ka raadisid ayuunbay ku siinaysaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.